mid ka mid ah kulamadii ugu xiisaha badnaa toddobaadka ayaa caawa soo dhammaaday inkastoo kulankan lagu tilmaamay inuu ahaa mid caajis badan labada kooxood ciyaar ay soo bandhigeen in badan aan lagu qancin. Old Trafford kulan kusoo dhammaaday barbara gool iyo gool ah ayaa wada ciyaareen kooxaha Chelsea iyo Manchester United. Moses Gazzetta oo qaybta dambe ciyaarta ka kansalay rigoor u dhaliyay Fernandes ka oo ciyaarta ka dhigay gool iyo gool ayaa lagu heshiiyey. Kooxda Chelsea iyo Manchester United shan waxyaabood ayaan soo qaadan doonaa oo laga bartay kulankan barbaraha ku dhammaaday. kooxda Chelsea ayaa kala horeynta horyaalka soo fariisatay kaalinta afraad waxayna leedahay 18 dhibcood halka kooxda United ka si ku meel gaar ah u hogaaminay Ruud van Nistelrooy ee ku jiraan kaalinta 16aad iyagoo 12 dhibcood. rikoorada ka soo baxay ciyaarta kadib ayaan eegi doonaa zed ka mid ah 13kii kulan ee ugu dambeeyay Manchester iyo Chelsea ee ku kulmeen horyaalka ayaa ku dhammaaday barbaro. United ka kadib 10 kulan horyaalka waxay leedahay 12 dhibcood waana heerkii ugu xumaatay 1986-87 dhibcood ay heleen. dhan kale wadarta guud ee 9 gool ay dhaliyeen Man United waa heerkii ugu yaraa 10kii kulan ugu horeeyay 1973-74 sagaal ayay sidoo kale dhaliyeen. ciyaartooyga 11 Chelsea kulankan uu ciyaaray ciidadoodu waxay 23 sano iyo 96 maalmood oo ciyaartooyda ugu daadiyay kulan Premier League la ciyaara Manchester United safta. Manchester ay dhalisay kaliya 2 gool qaybta hore Premier League xil ciyaareedkan waana heerkii ugu yaraa qaybta hore goolasha dhaliyaan waxay la mid yihiin kooxda Crystal Palace. guud ahaan kulanka ayaa kusoo dhammaaday gool taalame inaan Chelsea weli sii socoto rikoorkii xumaa ee ku leeyahay garoonka Old Trafford ugu dambeysay inuu ku badisay 2013.